magacaygu waa sibam waxaan ahay maleeshiyaan dhab ahaan waxaan ku safray dhammaan daafaha dunida si aan u sameeyo wixii tabartayda aan isugu keeni karo caqliyada ugu wanaagsan ee nabadaysan shirkad baan ku leeyahay Malaysia midaas oo ay ka shaqeeyaan dhammaan jinsiyooyinka kala duwan Afrikaan dad reer Pakistan reer Bangladesh reer Thailand iyo dawlado kale halkan waxaan ka helay oo waxaan rabaa inaan ka hadlo anigu waan ku faraxsanahay fursad ii siisaan su'aashii ugu dambeysay aad baad u mahadsantihiin dhamaantiin anigu waxaan ku dhex jiro oo buuxinayay nabad wax ka badan 18 sano laakiin hadda waxa rajadeeda dilaya waxay tahay markaad ka hadlaysan nabadda qasab maahan inay erayo noqoto oo kaliya balse waxa qasab inay afcaal noqoto hagaag waxa jira waxyaabo badan oo caalamkan ka dhaca oo qaab nabadaysan aanu dhicin waa qasab inaad fahanto in luqadda nabaddu ay ka imaato jacaylka hadda maxaa ka dhacaya bariga dhexe siyaasad miya anigu ma rabo inaan ka hadlo siyaasiyiinta halkaani joogaan aniga ma rabo qof siyaasi inaan arko sababtoo ah caalamku wuxuu u burburayaa sababta siyaasiyiinta ma garatay aad baan u xanaaqsanahay runtii sababtoo ah walaal su'aal ma qabtaa su'aashayda halkan anigu weliba caddaynaya adigu ma inkiri kartid markaad samaynayso waxyaabo wanaagsan iyo kuwa ugu wanaagsanba xitaa aniga waxa ugu wanaagsan ayaan u sameeyaa dadka iga kala shaqeeya dhammaan daafaha dunida waxaana ka soo qaadaa sida qoyskayga oo kale intaa kadib marka aan dhinto ima anfacayso acmaashayda wanaagsan sidoo kalena janno ma geli doono waa kuma qofka jannada aaday ee mar kale ka soo noqday si uu noogu sheego in aanan janno gelin walaal waa maxay su'aashaadu walaal waa waqtigii su'aalaha iyo jawaabaha haye waa maxay su'aashaada waxaad noo sheegtay su'aashaydu aad bay u muuqataa waan eegay dhammaan dadka su'aalaha ay ku weydiinayeen anigu warkaygu waa cad yahay dhammaan waxay ahaayeen su'aalo asaasi ah aniga dadkan baan weydiinayaa 80% ama 90 idin kamida ma fahantay waxa uu ninkan ka hadlayo waa inaad dhammaantiin ogaataan qur-aankay ku jirtaa qof walba waa inuu ogaadaa waxa aad hadda sharaxday oo wax iska bilbilaaw ah aniga xitaa waan aqaanaa aniga horaan waxaan u lahaa walaalay la shaqeeya war waa maxay su'aashaadu su'aashaydu waxay tahay adiga ma inkiri kartid in qofka xitaa haddii uu aaminsan yahay diin kale aniga waxaana hinduu ma garanaysaa micnaha jumladaas waxay la micno tahay dhammaan diimaha ayaan ixtiraamnaa aniga waxaan nin qudaarta cuno nabaati ma cuna kalluunka ama malayga sidoo kale ma cuno digaaga ama doorada aniga waxaan dhalay 3 cuno ogow weligay xitaa xaaskayga ma garaacin adigana waxaa tiri hinduuga waxa u suuragal inuu guursado hal mar ka badan aniga marnaba ma samaynayo mana samaynayo haddii xaaskayga dhimatay xitaa waa la dhimanaya waa arrin sidaasa walaalka su'aal buuna weydiiyey walaal su'aashaada waan fahmay khudba gaaban ayaad noo jeedisay waa waqtigii su'aalaha iyo jawaabaha adigu waxaad ka sheekaynaysaa acmaal wanaagsan isla markaana qawaacidda aad ku cayaaraysaa isii jawaab cad haddii aad tahay qof aan muslim ahayn oo aad samaysa acmaal wanaagsan sida inaad masaajid ku tabarucdo kale kaniisad inaad dhisto kale ama wax intaa la mida adigu waxaad ii sheegtay inaan fariintii saxneed helin si aan u aado halkii saxneeda jannada ah walaalka su'aal buuna weydiiyey haddii qof aan muslim ahayn uu sameeyo acmaal wanaagsan oo khayri ah ama wixii la mida ma ugu filan tahay arrintaas inuu ku aado halka saxda ah yacni jannada su'aashaad waxayd mid dhinacyo badan taabanaysaa su'aal fudud baana weydiin kartay ma ahan inaad khudbooyin kale nooca jeediso oo ay ka mid ahayd inaadan waxba aqrin inaadan baragtiis samaynin bariga dhexe inaad qoys leedahay wax badan baad ka hadashay laakiin ma jirin su'aal xadidan si ay su'aal u noqoto jumlada hadalkaada waa ugu dambaysaa calaamadda su'aasha maya waxaan ka hadlaya aad bay u fudud yihiin jawaab ma iga siin kartaa haddii qof aan muslim ahayn uu sameeyo waxyaabo wanaagsan sida inuu nolol siiyo qof kaloo muslima wanaagu samayntaas dadkoo dhan wanaagu samaynaya kadib marka aan dhinto dad badan baa ii cabsanaya ahaanshahayga muslim aanan ahayn owgeed taasi ma jawaab sax ah baa walaalka wuxuuna weydiiyey haddii qof aan muslim uu sameeyo waxyaabo wanaagsan sida inuu sadaqa bixiso dad kaalmaynaya intaa kadib dhimashadiisa ma janna uu geli doonaa mise naar intaasi waa waxaan ka fahmay isaga walaalkay jawaabta horey u baxday marka aad gelayso imtixaan sida igu dhacdayba imtixaankayga fasalka 10aad waxaa jirtay 6 maadoo laga rabay inaan ku baaso sayniska ingiliishka luqadda hindiga taariikhda juqraafiga dhammaan inaan ku baasaa laga rabay haddii aan 100% keeno 5 maado maadada sayniskana aan keeno 10% ma baasi doonaa dhab ahaan waan ku dhici doonaa sidaas si lamida halbeegyada lagu galo jannada waxay kala yihiin iimaan ama rumayn acmaasha wanaagsan xaq oo la isugu yeero iyo dacwada in lagu sabro la isugu yeero waad ahaan kartaa qof wanaagsan waxaad samayn kartaa samafal oo kale iyo wixii intaa la mida haddii aadan rumaysnayn allaha waaxidka ee xaqa ah oo aadan caabudaynin imtixaanka waad ku dhici doontaa sidaa darteed si aad ugu guulaysatay imtixaanka waa inaad ku baastaa halbeegyada 4 ah
oo ah rumaynta hal ilaah oo keliya hal ilaah oo xaq ah oo aadan caabudin asnaamta oo aadan rumayn ilaahyada beenbeenta ah nambarka labaad aad samaysa acmaal wanaagsan nambarka saddexaad isku dardaarantaan xaqa oo ah dacwada iyo nambarka afaraad oo ah in la isku dardaarmo sabarka oo lagu sabro dacwada sida darteed haddaadan rumayn allaha waaxidka ee xaqa oo aadan keligii caabudin shirkina aad u samayso si kastoy ahaato adigu dhab ahaan kuma guulaysan doontid nolosha aakhiro imtixaankana ku dhici doontaa waxaan rajaynaynaa su'aashaada ka jawaabay Thank you. Can we take the next?